Hello, salaamu calaykum. وعليكم السلام ورحمة الله. soo dhow walaal maxaa ka caawinaa? Walaal waxaa jira qof aan jeclaa oo kala faaruqnay. Sidaa daraaddeed waxaan u baahnaa talo si aan qofkaasi u iloobo. hagaag waxaa jira sababo fara badan oo loo iloobo dadyooga dunida yar soo mara, gaar ahaan kuwa saameynta ku yeesha. sidaa daraaddeed walaal waxaan kusoo koobaynaa dhowr qodob. qodobka koowaad, ducada. qalbigaaga midka ay gacantiisa ku jiraan waa Allah subxaanahu wa tacaala. u taago gacmahaada waxaadna weydiisataa in qofkaasi uu qalbigaada ka saaro. qodobka labaad, dil rajada. lagama yaabo in maskaxdaada ku guulaysato in qofkaasi ilowdo haddii aad rajeynaysid qofkaasi inuu kuu soo laabo doono, inuu kula soo hadli doono, amaba maalin aad meel iskaga hor imaan doontaan. lagama yaabo inaad ilowdo qofkaasi. waa qof danaysta iyo adiga niyadaada ka saar, sida qofka marka uu dhinto oo kale. miyaa la rajeynayaa inuu soo laabo doono? ka soo qaad in jecelkaasi dhintay oo 4 takbiir lagu dukaday. waa inaad u ducaysaa oo keliya, laakiin aadan rajeyn inuu dib u soo laaban doono. qodobka saddexaad, diladgaray oo tirtir xusuusta, sida qoraalada, sawirada amaba hadiyadaha uu qofku ku keenay. wax walba oo qofkaasi kusoo xasuusinaya ka dheerow, ama meel walba aad ku arki karto qofkaasi. ma sheegin haddii aad iskuul ama jaamacadda ama hal goob aad ka wada shaqeydaan, taasi iyadu waa mid dhibaateeda leh. balse ku dadaal inaad ka fogaato meel walba aad qofkaasi ku arki karto, ama wax walba oo qofkaasi kusoo xasuusin kara, amaba hadiyad ama wax ka mid a qofkaasi wax xusuustiisa dib kuugu celin kara. qodobka afaraad, adduunka oo dhammi ha ogaado. imise qof ayaa og in qofkaasi xiriir aan lahaydeen? u sheeg in xiriirkaasi dhammaaday. maskaxda qofka bini'aadamka ah waxa lagu barbaariyo ayaa la qabsataa. waa muhiim in qof walba aad u sheegteed inaad ku celcelisid in xiriirkaasi dhammaaday. qodobka shanaad, hagaaji fikirkaaga. ma og tahay sababta qofkaasi aad u iloowi la'dahay? sababtoo ah waxaad aaminsan tahay inaad la'aantiisa noolaan karin, aba inuu yahay qofka keliya ee farxad ku sii kara, qofka keliya ee jacayl ku sii kara inuu yahay. taasna waa midda ugu weyn aad u iloowi la'dahay. sidaa daraaddeed waa inaad hagaajisaa fikirkaaga, amaba aamintaa in adduunka uu ku nool yahay boqolaal isaga ka fiican. waa inaad sidoo kale aamintaa inuu Allah subxaanahu wa tacaala wax uu kuu qoray ka qayr badan tahay waxaad adigu dooratay. sidoo kale waa inaad aamintaa in qofkaasi kaa tegay uu ku siiyey fursad aad ku raadsato qof isaga ka wanaagsan. qodobka lixaad, ha qarsanin dareenadaada xunxun. murugo ayaa ku qabanaysa, ilmo ayaa kaa imaanaysa iyo wixii la mid ah oo dhan. ha qarsan dareenadaada, bini'aadam ayaa tahay. iskana ilaali inaad dhegaysatay heesaha calaacalka ah iyo wixii la mid ah iyo sheekooyinka jacaylka ah. waxaad ku dadaashaa inaad dib ugu laabato xiriirka bulshada. taasi waxay dhistaa macnawiyaadkaada iyo jacaylka bulshada kala dhexeeya. haddaba ugu dambeyn walaal waxaan ku leeyahay, adiga waxaad weysay qof aan marnaba ku jeclayn. isaga wuxuu waayey qof adduunka bis asaga u jecel, isaga bis daacad u ah. sidaa daraaddeed qofka nasiibka xun waa isaga ee adiga ma ahan. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.